cabdiqani ibraahim salaf xogayaha xiriirka gobolada iyo degmooyinka ee xisbiga mucaaridka ah ee ucid oo xarunta dhexe ee xisbiga ucid uu ku leeyahay magaalada Hargeysa kula hadlayay telefishinka Ariel TV waxa uu jawaab ka bixiyay hadallo maalintii shalay ahayd ka soo yeeray odayaal ka soo jeeda degmada Maxamed Mooge ee qaymahaasi oo ku saleysnaa guri laga dhisayo degmada Maxamed Mooge horta su'aashaad weydiisay waa su'aal aad iyo aad muhiim ah maanta Somaliland waxaynu maraynaa marxalad aad iyo aad u adag in alla intii lagu dhawaaqay laga reebay doorashada in loo kordhiyay muddo kordhinta baarlamaanka laga reebay golayaasha deegaanka waxa ay laabeen oo ay haddana saddex jabaareen musuqmaasuqii iyo boobkii ay ku hayeen dhulka danta guud dhulkii danta guud Hargeysa iyo magaalooyin kale waaweyn markii la dhameeyay Hargeysa ugu daraatee waxa imika la isugu soo biyashubtay wadooyinkii si toos ah loo gooyo xisbiga ucid waxa uu ka mid yahay xisbiyada qaranka de waxaanu xisbi mucaarad u nahay oo jira inaanu dadka wixii qaldan u soo sheegno Hargeysa dan hadalka soo koobo waxay lahayd gebigeeduba laba wado oo kaliya oo 150 ah midna waa ta waqooyiga marta midna waa ta Maxamed Mooge martay koonfurta wadooyinkii loogu talagalay halka in airport ka galaan mustaqbalka weey waana wado muhiim u leh caasimada wadada airport ka tagi doonta mustaqbalku Soomaalidana waxay ku mahmaadaan nin waalan tolkiiba u miir qaba maanta tolkiiba intay cimaamadii soo qaateen soo barbar istaagay oo yiri cidii loogu timaado waan iska cilin oo dagaalamayna waxaanu sheegaynaa tolka iyo nimanka salaadiinta sheeganayay nimanka qaldamay halkay ka qaban lahaayeen shalay u doodayay hanjabaayay horta meeshan iyaga iska leh waa deegaankoodii Hargeysa waxaan la isku haystaana waa wadadii baabuurtu u mar lahayd marka odayaashaasi dhintaan gaariga midkooda qaadaya u soo mari lahaa weey diinteena haddaynu ku noqono wadada iyo masaajidku masay ka taagan yihiin diinta islaamka dhanka kale xogayuu waxa uu eedeymo u soo jeediyay agaasimaha waaxda dhulka ee dawladda hoose wadadii 150ka ayaa waxa iibiyay agaasimaha dhulka ina gacan jirib iyo xogayaha dawladda hoose isagoo oo hadlaaya oo aan madaxa foosforin oo ka xishoonay wuxuu sameeyay oo ku faanaya boobka iyo wadadu gooyay ayaa wuxuu saxaafadda la soo fadhiistay dhulkaasi waa sharci jiciir ba jideeyay arintaasi waa been anagu jiciir haduu jideeyay haduu bixiyay jiciirna isaga soo cadeyn doona in gacan jirib oo wuxuu soo hordhigi doonaa qoraal cadeyna oo jiciir ku gooyay jiciirina gacan jiribtoona xaq uma lahayn wada gooyaan madaxweynaha qarankan wada gooyin karin wadada dadka iska leh ugu dambeyntii xogayuu waxa uu ugu baaqay madaxweynaha Somaliland inuu arrinkani soo farageliyo waxaan leenahay madaxweynihii qaranka loo doortay madaxweyne meel madaxa la salaaxo ka sareysa ma jirto dawladii hoose dadka dalkii way baabiyeen waanay boobayaan arrintan soo farageli wadada Maxamed Mooge iyo wadooyinka kale Hargeysa xidhan midna loo dul qaadan maayo haddii madaxweynuhu wax ka qaban waayo de waxa bay imka sheekadii maraysaa oo ay shalay nimankii hadlayay iyo nimankii wadada iibsaday ninkii ina gacan jirib iyo uu kamid yahay waxay u soo dhigan sifo qabiil oo ay reeru isugu dhacaan oo la isugu dilo Cabdi Jabbaar Maxamed Xuseen telefishinka Ariel Hargeysa